sidee marka Soomaalida isku raaci karaan ama isku raaci karnaa dabcan horta run waa Soomaaliya facweynayeen xataa ilbaxnimo lahaayeen way horumarsanaayeen qaabka hadda ay yihiin qaabka hadda aan nahnay waxa ugu bixi karnaa laba arin waa aad u sahlan tahay macna laba arin ugu bixi karnaa tan koowaad waa in dhaqaale la helo tan labaadna waxay tahay in la iscafiyo horta in afka laga dhaho fududahay si fiican dhaqaalo in la raadiyo si lagu heli karaa horta niyow dhaqaalaha dadka oo hadda anaga waan laga horumarsan yahay dunida saddexaad hadda noo yaqaan laakiin Soomaali dadka is weydiiyaan waay dunida koowaad yaabahay maxay sameeyaan qaabkee dhaqaale u sameeyaan Mareykanka oo kale hadeer qaabkoo dhaqaale u sameeyaa Yurubtan oo hadda ka soo gaartay qaabkee u sameeyaan ma aragtay Mareykanka iyo Yurubta Mareykanka saayid laakiin Yurubtan oo hadda ka daba socoto qaabkee iyaga dhaqaale u sameeyaan horta canshuuraadka oo wadanka la iska qaado horta number 1 waa Soomaaliya shaqadii ma jirto canshuur dadka loo qaadi karo laakiin Soomaaliya waxay haystaa fursad kale oo dhaqaale ay ku sameyn karto dawladda waxa kamid ah oo hadda sharcigaas Mareykanka waa ka jira Yurubna 2006 waxa u maleynaa bisha toddobaad ee iyagan ansixiyay in taas camal la sameeyo arintan waxayna tahay in canshuuraadka lagu soo kordhiyo dadka qurba joogta ah dadka Soomaaliyeed oo qurbaha joogo waxa lagu qiyaasaa 2.5 milyan oo qof 2.5 milyan oo qofood macnaha waa dareemi kartaa 2.5 milyan oo qofood haddii canshuur ay dawladda ku soo rogto hadda sida waliba hadda aad u sahlan in lagu soo rogo isla waxay aad qofkan lama yaqaano wadanka waa iska soo galo iska baxala visa jiro waxa jira waxa si codsiyaysa in qodob ee lagu soo daro meel u banaan in qofkan canshuurta u dhiibo iyo inuu dhiibin haddoosan dhiibin inuu markaas dhiibo oo ticket gadahayo oo maaragtay visa gadahayo inuu ku daro lacagtaas iyo in mar walba lagu xisaabtamo sababtoo qofka Soomaaliland jooga hadda qofka waxa jooga Puntland qofka waxa jooga Muqdisho kulli waxay marayaan maxaa processkaas waxay marka Soomaali dawladda fursad u sii kartaa in ay canshuur ku soo rogaan waliba waxa ma ka dhibays macnaha hatta wax xanuun ma aha maanta adiga 30 euro oo ma aragtay ama $30 waxay kula taamala aadiya hal maalina wax lagu aan ku cunaa macnaha hal casho bishii in qofkii $30 laga qaado 30 euro laga qaado 2.5 milyan ku dhufo macnaha 30 euro ku dhufo afudeeyo 2 ku dhufo dhibic waxay noqonayaan 60 milyan 75 milyan 75 milyan macnaha marka hal doona sanadkii 75 milyan bishii ee soo xarey karan dadka qurba joogtada Mareykanka sharcigaas uu qabaa qof walba oo muwaadin Mareykan ah hadduu wadan ka tago oo ganacsi meelahaas wax ku sameeyay adduunka kale qasab waa inuu wax dhiibo canshuur marka dhaqaalaha halkeena oo ku jiro waa in dadka keena macnaha dawladda markay dhaqaale yeelato waxay ka baxee in la gumeysto in lacag lagu gumeysto sida ogna anaga qofka ceer hadoo ku siiyo gumeysiga la socdo anaga dhow ogna ceerta gumeysiga la socdo min baan gubmaan waa gun taasa been ah taas marka waxa ka raaci kartaa marka qofka markuu isku filan yahay oo ciidankiisa lacagta dhiiba karo ma aragtay ee tasiilaadkiisa soo iibsan karo wax hub soo iibsan karo oo ka madax banaan wax dhan qof uma baahna markaas dawladdeena haddii qof u baahneen anagana qof uma baahnin macnaha waa inay dawladda ka soo bilaabtaa inay madax banaani hesho si anaga madax banaan u helno tan loo heli karan taas waa hadda Yurub fahmeen macnaha dhaqaalihii hoos uga dhaadhacay maxaa ma aragtay dhibkii ku batay sharci waxay soo saarayaan sanadka cusub 2026 in muwaadin kasto wadankan jooga hadduu ka tago haddaan baxo aniga laga marabo waajibi kuma laakiin markay bilaabato 2026 haddii wadankan ka tago canshuur ay ugu waajibto haddaan dhiibi waayo marka dabcan hadda u baahdo wadanka ku soo noqdo lacagtu way kugu soo ceeyaday deynay kugu tahay waxa dawladda ay kugu leedahay marka aniga inta qor qaato ama dagaalamo maanta sax 30 euro marka wax ma iga dhibaysa marka oo aan ku taageero wadankayga oo dhulkayga aan ku taageero taas dhaqaalaha way ugu bixi kartaa Soomaaliya waxa lagu leeyahay Soomaaliya hadda miisaaniyada ama aragti la ansixiyay 1.32 camal 1.32 bilyan waxa la sameeyay ma aragtay la ansixiyay sanadka hore waxa u maleeyaa inuu ahaa 1.34 inuu ahaa hadda way ka yartahay miisaaniyada miisaaniyadaas 1 point maxaa la ma aragtay 34 oo bilyan waxay ku keeni karaan 6 bilood ka yar
weliba iyadoo lagu darintan localka ay ka qaadaan banaanka waxaana ka dhigi mayso dadka ma aragto qurba joogta dadkaas iyo qodobkeena labaad see la isku cafi karaa in la dhaho fududahay horta iscafiska markaan hadda soo aragno nidaamka iyo qaabka Soomaaliya soo martay dada inta xoog inta u wadaan micnaha iyagoona rabina inta la isku geeyo weliba afar madax ah waxa leeyahay ma aragta isla wada shaqeeya qasabti markaas waxa leeyahay ma aragta hadaa waxaan sameeyay waxaan sameeyay anaga soo waxay ku qasban yihiin ayagoo snacb inay wada shaqeeyaan waxaana ka dareemay xasan sheekh imaad markii waxaan ka hadlaa oo dadka intay hadda og yihiin xasan sheekh markuu imaahay waxaa la isku kari waayay asiga iyo ra'iisul wasaarayaasha asiga iyo isku fiicnaa maxaa la ma aragta maamul goboleedyada aad isku jeclaayeen ka soo gudub waxaa imaaday farmaajo ra'iisul wasaarihii heshiiyeen oo la isku karay waxay isku kari waayeen haddana maamul goboleedyada xasan sheekh ma ku soo naqay tookada si fiican u fiirso waxaa heshiiyey ra'iisul wasaarihi iyo xasan sheekh maamul goboleedka la isku kari laayay hadda waxa keenay waxay tahay dadkii way kala cuqdadaysan yihiin isma aaminsano si daacad ah isku cafin iyagana ma bilaabi karaan maanta macnaha inuu maanta madaxweynaha soo istaago oo dhaho hala sameeyo waxaan aniga hadda tala aan ku keenay hadda hala sameeyo dhaho inay shaqeyso suurtagal waa so waxa aan rabo inay ka soo dadegtaan raba madaxda maanta waxa arkaysid hadda duu soo istaago qof madax ah qasab waa dad raacay waxay u raacayeen waxay tahay qalbiga xanuunoy dadkaas qalbiga xanuunoy so waxaan rabaa marka in iscafiska lagu keeno meesha ugu sahlan oo ah in la dhaho sanad kasto bisha yarta la doorto bina ama bisha la faraxsan ku huduluuli laga dhigo iyo ama laga dhigo ma aragto waqti bilaha oo ma aragtay oo barakaysan waxay yarta noqoto bisha yarta lagu aadiyo hala dhaho bil hebel isbuuca koowaad isniinteeda ama isbuuca labaad isniinteeda ilaa isniinteeda kale 8 maalmood ha noqoto qof kasta oo Soomaaliyeed inuu hadiyo soo gado yariisa noqoto laas okay hadiyada soo gado tusaale ahaan ani qabiil waxaan ka soo jeedaa reer qansax waxaa jiro reer qodax jiro reer qurac ani marka reer qodax maadaama ay waxaan soo gadaa hadiyo waxaan u geeyaa reer qurac qabiilka dhan buu tagay qof aan ka saaxiibkay oo asnaqaano aan u tagay oo qabiilkaas ka soo jeedo okay waxaan leeyahay brother ama sister waxaan rabaa inaan hadiyadan ku guddoonsiiyo waxaan rabaa aniga iyo qabiilkayga dambigan ka galno ina ilaahay dartiisa nooga cafisto qofkii tabcan ilaahay amarkiisa waxa waa ma aragtay ma dhihi karam ku cafihay dabcan si qalbiyuna markaas qofkaas aan yafiya marka Soomaaliya oo dhan marka bil kasto sanad kasto bishaas hal bil lagu aadisto qof walba saas oo u gada ma aragtay hadiyadaas u geeyo qofkan ha u geeyo qabiilada waa la yaqaan Soomaaliyeed ma lees dhaafsado adi qabiilkaaga bas inaa siisaa ka mamnuuc ah qabiilkaaga qof ah qabiilka kale war xitaa hawiyaha dhaxdiisa la isdilay daaroodka dhaxdiisa isdileen waxa isdileen Soomaaliland dhaxdiisa isdileen qof isdilaa ma jirta tag adi waxa u tagtaa qabiilka kale wiil kamid ah gabar kamid ah dada dhaqaale haysto oo ma aragtay Ilaahay u nimceeyay bax mashiin soo gad oo qofkan ku shaqeysan karo qofa jiro yaqaan businesska sida ma aragtay gaariga oo alaabta u saaran tahay qofkan faqri waa meel iska jooga qabiil kale iska waay waa gaday waa u geeyay waxa leedahay ma aragtay niyow Ilaahay dartiisa nagu cafi marka meeshana ma joogayna 10 sano 20 sano 30 sano kontankan soo socdo waxa suurtagal qof kasto Soomaaliyeed inuu qof kale Soomaali u cafi hadhow madaxa day timaad marka oo inay kul laab kacsata rabto oo meel qofka already waa diyaarsan yahay adiga ku necbi madaxa day timaad adiga wax ka sheegayso way raacay qofkaas raacay laakiin marka ani aan iscafino qof kale imaado oo nagu orkacsata ma jiraas beentaan 5 sano ka bacdi 10 sano ka bacdi 50 sano hatta qaad hada dhim Soomaaliyadna inay iscafiso oo calooshan isku furtay ee iimaanay ilaahayna waana daalacaa qofka markaas saas wax u geeyay